muxaadaradeennan waxay ku saabsan tahay qiimaha ay leedahay salaadu. salaadu walaalayaal waa tiirkii diinta, waana madaxa waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado. waa quruxdii raacaadka iyo qurubaadka. garashada la garto cibaadaadka qadarka iyo qiimaha ay leeyihiin faa'iidooyin fara badan ayaa ay keenaysaa. faa'iidooyinkaasi waxaa ka mid a qofka inuu aada iyo aada u tixgeliyo oo shay kastoo qaaliya uu ku bixiyo hagaajinteeda iyo dhammaystirkeeda, iyo inuu la yimaado shuruuddeeda iyo waajibaadkeeda, inuu ka ilaaliyo dayaca iyo luminta. waxaynu aragnaa walaalayaal oo inoo muuqda dad fara badan oo islaamka u nisbo sheegta oo rag iyo dumarba leh, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey awood iyo caafimaad. ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey wakti faraaqa oo haddana loogu taaglaayahay salaada. sidaasoo kale waxaynu aragnaa dad fara badan oo muslimiina oo tukanaya oo laga yaabo salaada qiimaheeda iyo qadarkeeda inaanay aada iyo aada u fahamsanayn, oo marka ay la noqotona iska tukada, marka ay la noqotona iska daaya, aan ku dadaalin inay u tukadaan siduu u tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam. salaada oo qiimaheeda la gartaa dawa ayay u noqonaysaa ka aan tukanahayn. qiimaheeda marka uu maqlay uu garto, waxaa laga yaabaa arrinkaasi inuu sababo inuu nicmada ka maqan uu dareemo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keeno u noqdo. ka salaada tukanaya ee hayana daway u noqonaysaa oo cibaadadaasi inuu ilaaliyo, ilaahay ugu mahadnaqo subxaanahu wa tacaala oo uu sii wado ayaa arrinkaasi uu kalifaya. salaada qiimaheeda haddaynu walaalayaal haddaba wax ka tilmaano, salaada qiimaheeda waxayna tusinaya waa arrinka koowaad ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu faral yeelay marka laga yimaado tawxiidka iyo ikhlaaska. ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa waxa uu faray inay ilaahay rumeeyaan oo ilaahay ay waxidaan oo ay keliyeeyaan. waxaa rabbi uu ugu xigsiiyey inay salaada oogaan. fain taabuu wa aqaamuu salaata wa aatuu zakaata fa ikhwaanukum fi ddiin. ilaahay wuxuu leeyahay kuwa gaalada ee kafaradii hadday toobad keenaan oo iimaan iyo ikhlaas iyo tawxiid ay la yimaadaan, salaadana ay oogaan, zakadana ay bixiyaan, waa walaalihiin oo diinta ayaa idin walaalaysay. ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaanka waxa uu ku xigsiiyey salaada oogitaankeeda. waa shayga labaadee markaa la farayo qofka. wamaa umiruu ilaa liyacbuduu allaha mukhlisiina lahu ddiin xunafaa'a wayuqiimuu salaata wayu'tuu zakaa. addoomaha wax kale lama farin, inay ilaahay caabudaan ay keliyeeyaan mooyaane, oo ay tawxiidkaasi ku daraan inay salaada ogaan, zakadana waxa weeyaan ay bixiyaan. rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo ka warramaya waxyaabaha ilaahay uu faray, waxaa lay faray buu idhi dadka inaan la dagaalamo oo dagaal iyo duulimaadaan ku qaado ilaa ay ka marakacayaan allah xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane, iyo maxamed inuu yahay rasuulkii ilaahay uu soo diray, fariinta uu soo dhiibay. intaana ay ku darayaan inay salaada oogaan, zakadana ay bixiyaan. intaa haddii laga helo buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam, waxa ay ilaaliyeen oo ay wax dhowrsoon ka dhigeen dhiiggoodii iyo maalkoodii. xisaabtooduna ilaahay bay subxaanahu wa tacaala u taallaa haddii qalbiga nifaaq iyo gaalnimo ay ku qarsanayaan. rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u diray waddanka yeman la odhan jiray laba saxaabi, mucaad ibnu jabal iyo abu muusa alashcari. waxaa rasuulku uu u sheegay oo uu sii baray wixii dadkaasi ay ugu yeedhi lahaayeen iyo wixii ay fari lahaayeen. dardaaranna waa sii siiyey. mucaad wuxuu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam, waxaad u tegaysaa qowm ahlu kitaab ah, waxa u horeeyaad ugu yeedhaa ha noqdo inay ilaahay keliyeeyaan oo shirkiga waxa la yidhaahdo ay iska ilaaliyaan,
waayo cibaadaadkii iyo khayrkii kale waxba tari maayo oo bor la afuufay buu noqonayaa haddii tawxiidkii iyo ikhlaasku uu ka maqan yahay oo shirki uu ku dheehan yahay. wuxuu uhi rasuulku haddii taa ay ka aqbalaan oo tawxiidka ay la yimaadaan waxaad uga warantaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku waajibiyey 5 salaadood oo la tukanayo habeenkii iyo maalintii. taasi haddii ay yeelaan waxaad uga warantaa inuu ilaahay xoolahooda ku waajibiyey sadaqo iyo zako laga qaadayo kuwooda waxaysta lana siinaayo dadka baahan ee fuqarada ah ee iyaga ka mid a. xadiidka markaa waxaa ka cad sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam tawxiidka iyo shahaadateynka uu ugu xigsiiyey salaaddu markaa sidaas ayaa tawxiidka ay ula socotaa ay ugu xigtaa. taasina waxay tusinaysaa qiimaheeda iyo martabada iyo mansilada ay diinta islaamka ay ka taagan tahay iyo khasaaraha weyne uu ku jiro qofka dayaca rukunka labaad ee ka mid ah arkaanta islaamka. waxaa salaada weynideeda iyo qiimaheeda ina tusinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka kaga warramay ambiyadiisa iyo rususha uu soo diray inuu salaada ku faral yeelay. waxaynu garanaynaa ambiyadu ilaahay agtiisa inay qiime iyo qadar weyn ka leeyihiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa waxa uu u doortay dadka uu jecel yahay inay salaada oogaan waayo qadarkooda iyo qiimahooda ayaa ay kordhinaysaa. nebi muuse ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yihi facbudnii wa aqimi salaata lidikrii icaabud buu yihi ilaahay subxaanahu wa tacaala oo salaadan oog. salaadu cibaadada waa ku jirtaa haddana mar labaad baa gooni loo sheegay si gooniya iyada loo tixgelinaya oo loo sii adkaynaya. waxaa la leeyahay ilaahay caabud weliba salaadana si gaara usii ogow cibaadaadka kuwa ugu waaweyn ayay ka mid tahay. nebi ibraahim ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inooga warramay inuu kaxeeyey zawjadiisa xaaskiisii iyo carruurtiisii. waxa uu dejiyey waadi iyo tog aan lahayn wax zaraca iyo wax beera oo baytullaahi almuxaram agtiisa ah. waxa uu tilmaamayaa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam sida ilaahay uu inooga sheegay asbaabta halkaasi uu u geeyey inay ka mid ahayd inay salaada oogaan rabbanaa liyuqiimu salaa. waxaa meeshaa cidlada ee cidina aanay joogin ee biyo iyo baatoona aan lahayn beerana aan lahayn ee u dhow waxa weeyaan gurigaasi muxaramka ilaahay subxaana wa tacaala uu karaameeyey ee uu sharfay waxaan halkaasi u geeyey si ay salaada u ogaan. marka inuu nebi ibraahim salaada oogi jiray dadkiisana uu ugu talagalo uu faray inay salaada oogaan bay aayaddaasi noo caddaynaysa. nebi ismaaciil buu ilaahay subxaana wa tacaala ammaanay. waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku ammaanay inuu ehelkiisa iyo dadkiisa fari jiray salaada iyo zakada wa kaana ya'muru ahlahu bisalaati wazakaa. isaguna ehelkiisa ayuu ka mid yahay oo aayadda macnaheedu wuxuu noqonayaa isaguna salaada waa oogi jiray dadka uu mas-uula ka yahayna salaada inay oogaan ayaa uu fari jiray. nabiyullaahi isxaaq iyo yacquub ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay iyaguna inay ahaayeen kuwa ilaahay uu waxyooday inay salaada oogaan wa awxaynaa ilayhim ficla alkhayraat wa iqaama asalaati wa iitaa'a azakaa. wuxuu tilmaamay rabbi inay ka mid ahaayeen duriyadda ilaahay subxaana wa tacaala uu ka farxay nabiyullaahi ibraahim oo ilaahay uu ka dhigay dad saalixiin oo wanaagsan. waxa ilaahay uu waxyoodu u sheegay inay khayrka sameeyaan. waxaa laga dabageeyey salaadana inay oogaan. salaaddu waxay ka mid tahay khayrkaa la samaynayo haddana mar labaad baa gooni loo sheegay si aan marnaba iyada aan loo mooganaan oo mar kasta loogu baraarugsanaado qiimaheeda iyo qadarkeedana waxa weeyaan la muujiyo. nabiyullaahi shucayb ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u diray qoom gaaloobay. qoomkaasi waxa ay ku darsadeen kufriga iyo shirkiga inay ahaayeen kuwo dadka ku khiyaameeya miisaanka iyo miiska waxyaabaha wax lagu beego. ilaahay subxaana wa tacaala markaa wuxuu tilmaamayaa inay nebigoodii shucayb ay la hadleen ay yidhaahdeen yaa shucaybu asalaatuka ta'muruka an natruka maa kaana yacbudu aabaa'una. shucaybow ma salaadaadaa ku fartay inaanu ka tagno wixii ay caabudi jireen aabbayaashayo iyo dadkii naga horreeyey. waxay markaa culimmadu yidhaahdeen
taas waxay tusinaysaa inay ahaayeen kuwa u arka shayga uu weyneynayo nabiyullaahi shucayb ee acmaasha ka mida inuu salaada ahaa tawxiid ku weyneynayey acmaashana salaadu aada u weyneynayay sidaa awgeed bay idhahdeen ma salaadan aadka aada u weynaysay agtaada qiimaha weyn ka leh ayaa ku fartay oo kuu sheegtay inaanu ka tagno asnaamtii iyo aalihadii ay caabudi jireen dadkii naga horreeyey marka taasi waxay tusinaysaa nebi shucayb calayhi salaatu wasalaam sida salaada aada iyo aada ugu weyneyn jiray ilaa ay noqotayba arrin lagu bartay oo xataa kuwii kufaarta ahaa ee asnaamta caabudaya ay barteen oo ay fahmeen inuu ahaa waxa weeyaan mid salaada weyneeya nebiyullaahi nuux iyo ambiyadii ka dambaysay oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay iyaguna inay salaada oogi jireen ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiin min duriyati aadam wa miman xamalna maca nuux wa min duriyati ibraahiima waisraa'iil wa miman hadayna wajtabayna ida tutla calayhim aayaatu araxmaani kharuu sujadan wa bukiya waxaa ilaahay u leeyahay kuwaasi aan u nicmaynay nebiyada ah oo aa duriyadii ka farcantay nebiyullaahi aadam oo ka mida kuwii nebi nuux doonida la saara oo ka mida duriyadii nebiyullaahi ibraahim iyo israa'iil oo ah dadka aanu hanuuninay oo aanu doorannay aayaadka rabbi subxaana wa tacaala marka lagu dul akriyo ee ay maqlaan ilaahay wuxuu leeyahay sujuud bay la dhacayaan iyagoo ooyaya oo ilmaynaya aayaadka ayaa qalbigooda ruxaya markaa sujuuddaasi inay sujuud salaadeed ahayd ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo caddaynaya oo intaa wuxuu ka dambaysiiyey fakhalafa min bacdihim khalfun adaacuu salaata waattabacuu shahawaat fasawfa yalqawna gaya waxaa ka dambeeyey dadka wanaagsan ee ambiyada iyo kuwii raacayba lahaa ee salaada ilaalin jiree tukan jiray kuwo iyaga xumaan kala dambeeyey salaadii bay dayaceen dadka hore ay oogi jireen shahawaadkooday raaceen iyo naftu waxay jeceshahay oo salaaddii ay ka doorteen ay ka door bideen ilaahay wuxuu inoo tilmaamay markaa inay ciqaab weyn la kulmi doonaan oo lagu guri doono naarta jahannama tog ku dhex yaallo oo naar ah toggaasi oo aada iyo aad dhadhankiisu uu yahay mid u xun guntiisuna aada iyo aad ay u dheer tahay sida saxaabada qaarkood ay tilmaameen aayadda qur-aanka markii ay fasirayeen nebi ciise hooyadii oo maryam ahayd ilaahay wuxuu inooga warramay malaa'igtu inay u dhawaaqday waxay ku dhahan yaa maryamu qnutii lirabbiki wasjudii warkacii maca araakiciin maryamay rabbigaa caabud oo u khushuuc oo u hoggaansan oo sujuud oo rukuuc oo la tuka dadka waxa weeyaan tukada salaatuljamaaca weliba ha lagaa helo sidaas ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamaya dadkii wanaagsanaa markii derajadoodu ay kor noqotay in waxa weeyaan aan la odhan khayrkiiyo wanaagga iska daaya ee la yidhi ilaahay haddaad u dhowaateen khayr iyo wanaag sii kororsada nebi ciise wuxuu isna ka warramay sida ilaahay uu inoo sheegay nicmooyinka ilaahay uu siiyey nicmooyinka ilaahay uu siiyey wuxuu ku daray inuu ilaahay faray inuu salaada oogo zakadana u bixiyo wuxuu uhi wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu waawsaanii biالsalaati waالzakaati maa dumtu xaya ilaahay wuxuu iga dhigay buuhi mid barakaysan meel kastoo aan tagaba waxaanuu ilaahay faray salaada iyo zakada inta aan nool ahay inaan labadaas waajib ka soo baxo marka sidaas ay ahayd ambiyada ilaahay iyo dadka saalixiinta ee wanaagsani kuwa salaada waxa weeyaan u ictibaariyo ka dhiga nicamka ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey wax ku culus ma ahayn salaadu waxay ahayd mid ay ku raaxaystaan oo qalbigooda uu ku xasilo oo qalbigooda uu ku dego ilaahay subxaana wa tacaala isagoo la hadlaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waamur ahlaka biالsalaati wastabir calayha laa nas'aluka risqa naxnu narzuquk waalcaaqibatu liltaqwa waxaa la yidhi nebi maxamedow ehelkaaga waxaad fartaa salaada adiguna salaada tuko ilaali salaaddu markaa sabir bay u baahan tahay shaydaankiibaa kula dagaalamaya oo kuugu yeedhaya salaad la-aan iyo xumaan naftaaduna waa amaaratun bisuu iyadoo salaaddu ay fududdahay wakhtigeeduna uu kooban yahay haddana waxyaabaha kugu furan ee laga yaabay inay kaa hor istaagaan baa fara badane
salaada u sabir baa la yidhi wax risqiyo annagu aanu kaa doonaynaa ma jirto annagaaba ku arsaaqayna waxaa la tilmaamayaa halkaa qofka muslimka ah in salaada aanay ka hor istaagin raadinta risqiga uu raadinaya waa hubka ugu darana shaydaanku uu isticmaalo dadka salaada inuu ka hor istaago inuu yidhaahdo carruur yaroo gaajoonaysaa ku sugaysa hawlaa ku yaalla guri kiradii baa ku sugaysa reerbaa biilkaa sugaaya salaada intaa tukanaysa ayaa hawlihi ay ku dhaafayaan oo dadku ay kala macaashayaan oo ay kala shaqaysanayaan xaggaasuu shaydaanku ka soo gelayaa qofkii faqri iyo baahi buu u yaboohayo uga ballan qaadaya markaasi ayaa salaadii qofka uu seejinaya ilaahay markaa wuxuu leeyay waxba ha warwarin waktigaa salaada aad tukanaysa hamoodin inuu risqi kugu dhaafayo risqiga annaga ayaa ku ahayna buu leeyay rabbi subxaana wa tacala annaga ayaa ku arsaaqayna ee adigu waajibka lagu diray ka soo bax salaada markaa qiimaheeda arrinkaasi aad iyo aad buu inoo tusinaya arrin labaadna wuu ina tusinayaa arrinta labaad ee aayaadkaasi ayna tusinayaan waxay tahay qofku markastuu ilaahay u dhowaado inay tahay inuu cibaadiye khayr kororsado ee aan ahayn inuu yidhaha cibaadihii khayrkii aniga waa layga daayo ilaahay baan u dhowaaday inay khuraafo tahay dadka odhanaya annagu waxaanu gaadhnay martabo saro salaaddii waana laga dhaafo nebiyada ilaahay cid ka martabad sarraysaa ma jirto haddana waxaad aragtaa nebi kaste inuu ilaahay subxaana wa tacaala farayo salaada inuu ogo maryamo markii la tilmaamay ilaahay inuu doortay waxaa la yidhi ilaahay baa ku doortay ilaahay caabud oo ilaahay u rukuuc oo ilaahay u sujuud nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay subxaana wa tacaala dembigiisii hor iyo kii dambaba dhaafay muu fadhiisanoo muu odhan aniga salaaddii waa layga daayey bal salaad ayuu tukan jiray ilaa xidhbihiisu ay dildillaacaan markii lagu yihi maxaa ku kalifayna rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam afalaa akunu cabdan shakuura miyaanan noqon ahayn addoon ilaahay umahadnaqa marka ilaahay cibaadiye khayr iyo wanaag markuu ku waafajiyo mahadnaqaad ilaahay umahadnaqaysa waxaa ka mid a cibaadiye khayr iyo wanaag inaad kororsato laakiin haddaad khayrkiiyo wanaaggii iska dayso ilaahay umaad mahadnaqin subxaana wa tacaala darajadiina waxa weeyaan hoos ayaad uga dhacday markaa ogow inuu yahay qof shaydaanku duubsaday haddaad aragto qof le salaaddii baa layga dhaafay ama anigu salaada waxa weeyaan tukan maayo waxaana dadka in lagu dago ama ay ku dagsoomaan maaha waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka warramay oo uu qur-aanka ku caddeeyey salaada waajibnimadeeda inay tahay faral ilaahay uu saaray addoomaha weliba dadka mu'miniinta ah ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaadu waa faral mu'miniinta ilaahay subxaana wa tacala uu ku faral yeelay weliba waa faral waktiyaysan ilaahay wakti buu u yeelay waktigiisa in laga horumariyaana ma banaana in laga dubdhigaana ma banaana waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala aayad kale uu ku tilmaamay addoomaha in looga baahanyay inay ilaahay u noqdaan oo ilaahay ka cabsadaan waxyaabaha taa keenayana inay ka mid tahay inay salaada oogaan wa aqiimu salaata walaa takunuu min almushrikiin waxaa kaloo aayaddu ay ishaaraysa oo ay tilmaamaysaa inay sifaadka mushrikiinta ka mid tahay salaad la-aani inaanay tukanin qofka muslimkaa markaa waxaa la leeyahay waar mushrikiinta ha la mid noqonin ee adigu salaada tuka si aad mushrikiinta aad uga soo carto oo aakhiriya adduunba waxa weeyaan laydiin kala garto rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam salaadu qiimaha agtiisa ay ka lahayd isagoo muujinaya saxaabadiisa iyo ummaddiisana baraaya iyadoo ilaahay uu faral yeelo qur-aanka uu ku sheegay saxaabadiisana afka uu uga sheegi jiray haddana intaa kagamuu tegi jirin bal ballan buu kaga qaadi jiray bayco iyo ballan buu saxaabada kaga qaadi jiray salaada inay ogaan saxaabiga la idhaha jariir ibnu cabdillaahi wuxuu yidhi baayactu rasuula allahi calaa iqaami asalaa wa iitaa'i azakaa wannusxi likulli muslim rasuulka ilaahay waxaan kula ballamay buu yidhi oo markaan soo islaamay ballan uu igaga qaaday salaada inaan ogo zakadana inaan bixiyo muslim kastana inaan u nasteexeeyo salaada in la ogo zakada la bixiyo muslim kasta baycadu kaga qaadi jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam waayo salaadu waa faralkii iyo waajibkii qofka jasadkiisa saaraa zakaduna waa faralkii iyo waajibkii qofka xoolihiisa iyo maalkiisa ilaahay uu saaray intaa kadib rasuulku qof kasta wuxuu kula ballami jiray arrimaha isaga si gaara looga rabo ee khaaska u ah markaa tawxiidka dabadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaada ayuu ballan kaga qaadi jiray waayo waa madaxii cibaadaadka jidhka laga sameeyo si aanu qofna u fududaysan oo qof waliba iyadoo ilaahay uu waajibiye haddana ballanka u xusuusnaado rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka yeelay salaada tiirarka diinteennu ay ku taagan tahay
وهذه لوايد الدينان تاجنان هاي وحر رسولك إسلامك وحل لقول شنتير شهادتين كأور رئيس صلاة نواكو حكتا زكاة ياكو صدحة حجك كوافرة صومك نواكو شن أحاديث قاركودنا حجك يودا بيسيسي وصومك يسوهر مرس وأحاديث كايد هذا العلماء رسولك وحكو شبه إسلام كي قري وحين وقناي قريقو وحاوكا كوبان يهي قيبة أساسية وهذه اللوايان تاقنانه هي قيبة لما يسترع وقريقو تاقنانه لكن نقصانه كتير يسو هذه وحويا اللوايو شن تاتير وتيرر كمركا إسلام كو تاقيا إسلام قريقو باو تيرر كو تاقيا وهذه اللوايو قاركود إن إسلام لماذا لقى بحيو والاسكو وافق سيه شهادتين قفا كتاقا بريا إنه قال يا إسلام لماذا وحبك هينين وقفك الشرك اللي يمادين تاخلاف كما تاقنا يدا أفرتن كصاهرنا مدوال بعو لماذا إسلامك قاربا يدقفك كتاقواكو قالوا بيه ودينتو كقبحيا ولما توقد درن علماء قاركود إليان صحابة واحد اسكو وافق يقفك كتاقا إنه قال يا والصلاة دويا وخلاف كيدو وآدياد وحويان الدرياح رسول كان عليه الصلاة والسلام وحو إنه قور رمي صلاة ووقت كيدا اللي وقعين كمتاي أعماش إلهي وقود شعليه إلهي مركز صلاة وقت كيدا اللي تكدا واتشعلي قفك صلاة وقت كيدا تكدنا إلهي واتشعلي قفك إلهي سبحانه وتعالى وتشعل هذا ملايكتا تشعلانيس ملايكتو مركز تشعل هذا نتشعيلك إيا أقبلتانك نولك إيا الله نقيا إلهي سبحانه وتعالى تشعيلك أدونك وتشعليا هي عملك وسمينا أبا المريو ونأكسرين وقوى أبا المريو أيها وحويان كدلانيسا وكرت ميسا وحول عبد الله بن مسعود وحن ويدي رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي شقل قبطته بوجعلي شقوينك وعبد الله رسولك ويدينا يا وشقوينك تلك لقى قبط أي شقوينك قلبك لقى قبط ما وحول رسولك عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها صلاة ووقت قيادة لتكده أي إلهي وجعلي هاي أعماش الجسد كو الصميو تلك لقى الصميو marka ilaahay subhanahu wa ta'ala shaygaas uu jeclaaday qadar iyo qiimo weyn inuu leeyahay ayaanu shaki ku jirin wuxuu inooga waramay rasuulkeenu isagoo inoo cadeynaya qiimaha iyo qadarka salaadu ay leedahay adoomaha maalinta qiyaamo marka la soo tubo ee in la xisaabiyo la bilaabo acmaasha iyaga iyo ilaahay ka dhaxaysa subhanahu wa ta'ala ka ugu horeeya laga xisaabinayo inuu yahay salaada marka maxaa xisaabta looga bilaabay acmaashaasi marka laga yimaado tawxiidka ayay ugu qadar iyo qiimo badan tahay acmaasha jawaarixda ka ugu horeeya adoonka laga xisaabinayo waa salaada horta bal waxa la weydiinayaa ma tukaday deebisa mu tukan waxa la weydiinayaa hadduu tukaday ma aha salaada mid u tukaday sidii loo faray oo sideedu uga soo baxay mise wuxuu ahaa mid salaadiisu waxa weeyaan ay dhaawacan tahay kala dhantaalan tahay wuxuu yidhi abu hurayra radia allahu canhu rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa ugu horeeya ilaahay dadka uu ka xisaabinayo maalinta qiyaame ee acmaashooda kamid ah ay xubnahooda ka sameeyaan waa salaada ilaahay wuxuu ka oranayaa malaa'igtiisa eega bal adoonkani inuu ka soo baxay faralkii salaada haddii markaa faralkii salaada uu ka soo baxay adoonkaasi waxa weeyaan salaadu ay u hagaagto acmaashiisa intii kalena waa u hagaagaysaa haddii salaadiisii faralka ahayd ay nuqsaani ku jirta ilaahay wuxuu oranayaa war bal eega salaad sunnaa ma leeyahay loogu kabo oo loogu dhamaystiro hadduu leeyahay waa loogu dhamaystiraya haddaanu lahayn sunne salaadiisii faralka ahaydna sidaas ay u dhaawacan tahay dhaawacaasi iyo kala dhinaanshahaasi acmaashiisi iyo khayrkiisii kalena waa raadaynaya marka waynu garanaynaa walaalayaal meesha la isku xisaabinayaa meeshay tahay waa garoomadii waxa weeyaan qiyaamaha oo aanu jirin god lagu gabadiyo geed la harsadaatoona oo cid ku gargaaraysa aanay jirin oo cid waxa weeyaan wax kula qabanaysa aanay jirin bal la kala yaacayo la kala dhuumanayo oo adiga iyo wixii aad shaqaysatay arrinku uu noqonayo marka haddii wixii ugu horreeya lagu weydiinayo aanad xaggiisaba eegin oonad ilaahayba subxaana wa tacaala fooda u dhigin ama nuqsaani ay kaa gasho miyaanay murugo weyn arrintaasi kugu noqonahayn yowma alqiyaama waxaa laynoogu sii sheegayaa arrinka noocan oo laynooga sii warramayaa
bal inaynu diyaar garowno arrinkaan wax ku qaadano salaada qiimaheeda waxayna tusinaya waa wax lagu dhaafo dambiyada adoomaha ka dhaca hadday ka dheeraadaan dambiyada waaweyn wuxuu yidhi ibnu mascuud rasuulka waxa uu yimi calayhi salaatu wasalaam nin wuxuu yidhi gabadh baan wax ka asiibay buu yidhi inuu taabtay iyo inuu gabadhaasi waxa weeyaan afkiisa uu saaray labadaasi wax ka mida ayuu sheegay waxaad moodaa buuhi cabdullaahi ibnu mascuud ninkaasi inuu rasuulka weydiinayo dembigaasaan galay maxaa lagaga dhaafaya ilaahay baa subxaana watacaala ninkaa u jawaabo wuxuu uhi waaqimi salaata طarafay الnahaar wazulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna asayi'aat haddaad doonayso dembiga noocaasi in lagaa dhaafo salaada og maalinta labadeeda gelin iyo saacada habeenkii ka mid a waa shantii salaadood ba halkaasay soo gelayaan ina alxasanaati yudhibna asayi'aat xasanaadka iyo wanaagyadu waxa ay tagsiyaanay masaxaanay tirtiraan xumaanaha xumaanta aad gashay gabadha aan xalaasha ku ahayn inaad taabatay waxaa lagaaga dhaafayaa salaada inaad xifdido oo waxa weeyaan aada oogto ninku wuxuu yidhi intuu aad iyo aada u farxay yaa rasuula allah aliya haadi rasuulka ilaahay o tani maanigun ba ii gaartay nicmada noocani oo in salaadii lagaga dhaafayo khaladka noocaasi iga dhacay rasuulku wuxuu yihi hiya liman camila biha min ummatii adiga kuguma gaarahee cid kastoo arrinka noocaasiya ku dhaqanto ummadayda ka mida waxa weeyaan nicmada caynkaasiya waa helaya wuxuu yihi rasuulkeenu salaadaha shantaa iyo jumcada ilaa jumcaha kale laga gaadhayo waa kuwa lagu dhaafo dembiyada inta ka dhaxaysa la sameeyo waa marka laga dheeraado dembiyada waaweyn wuxuu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabaysa maalin la hadlaya war bal waxaad ka warantaan haddii midkiin albaabkiisa uu maro webi uu maro webigaasuu maalintiiba ka maydhanaya 5 jeer su-aal baan idin weydiiyey wasakhdii iyo uskagii jidhkiisa saaraa miyay wax ka hadhayaan soo nadiif noqon maayo qofkaasi maalintiiba 5 jeer biyaha webiga nadiifta ka maydhanaya waxay yidhaahdeen laa yabqaa min daranihi shay laa yubqii min daranihi shay maydhashada noocaasi webiga uu ka maydhanaya uskagii iyo wasakhdii qofkaa saaray waxba ka reebi mayso wuxuu uhi rasuulku fadalika mithlu salawaati alkhams yamxu allahu bihi alkhataaya sidaasoo kale waxaa ka dhigan salaadaha shanta ah sidaasuu ilaahay subxaana watacaala ugu maydhaa dembiyada waxay yidhaahdeen ahlulcilmigu markay xadiidkaa fasirayaan waxaynu ognahay qofka jidhkiisan inoo muuqdaa inuu wasakoobayo u iskagoobayo haddii waxa weeyaan wasak uu ku dhex dhaco ama ay kusoo duusho amase waxa weeyaan ay taabato dharkiisa ayaa lamid ah arrinka noocaasi qofka waxaa ka tahiraya oo ka tirtiraaya inuu biyo iskaga maydho sidaasoo kale ayaa macaasida iyo dembiguna qofka ay u wasakhaynaysa waxay wasakhayntaa ka bilaabaysaa qofka qalbigiisa oo qalbiga ayaa ay madoobeynaysa dabeeto qalbigii marka uu madoobaadee macaasidaasi ay daboosho ay dahaadho hamoodin waxa weeyaan wasakdaasi inay halkaasun baaqi ku noqonayso xubnaha kale uga soo baxaysa oo mar hadduu qalbigii kharibmo afkiisaa kharibmaya oo indhihiisaa kharibmaya oo waxaa kharibmaya gacmihiisa oo addimadiisaa kharibmaya oo wejigiisa ayaa nuurkii laga qaadaya oo mugdi waxa weeyaan la saaraya iyo dulli aan ka qaadmahayn arrinka noocaasiya iyo mugdiga iyo wasakda waxaa maydhaysa buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadaha shanta marka sidooda looga soo baxo haddaba waxa isweydiin leh qof kastoo salaada tukanaya salaaddu miyay ka maydhaysaa xumaanaha uu gelayo salaad kastaa ma maydhayso dad badan oo tukanaya ayaanay salaaddu ka maydhahayn dembiga iyo xumaanta ah bal u fiirsa xadiidkan wuxuu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam ma jiro qof muslima oo salaaddii faralka ahayd ay soo gaadhay waktigeedii baa la gaadhay oo waktigeedii marka la gaadhay waysadii hagaajiyey oo khushuucdii hagaajiyey oo qalbigiisa soo xaadiriyey oo rukuucdeedii hagaajiyey hadduu jiro qofku sifadaa uu leeyahay salaadaasi waxay ka maydhaysaa ka tirtiraysaa dembiyadii ka horreeyey inta aanu kabiire iyo dembi weyn aanu la iman idan salaada dembiga maydhaysaa tirtiraysa waa ta sifaadkaa leh waa ta waktigeeda la tukado ee waysadeeda la hagaajiyo ee khushuucla dee qofka qalbigiisu wax xaadir yahay ee sidaasoo kale waxa weeyaan rukuucdeedii iyo sujuuddeedii iyo qiyaamkeedii loo dhammaystiro wuxuu inaga warramay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam dad salaada tukanaya salaadooda inaan waxba looga qorahayn in faralku inuu ka dhaca mooyaane
qaar baa 10 meelood oo meel loo qoraya 9 meelood oo meel 8 meelood qaar baa nus loo qoraya waxa salaada sida u kala duway le dushi waa tar iskaga mid ee safka lagu wada jiree qalbiga kala duway oo dadku iyagoo dusha iskaga mid oo isku si u rukuucaya ayaanu qalbigoodu isku mid ahayn midna qalbigiisa baa jooga oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala qaabilsan midna qalbigiisa ayaa maqan oo meesha aan joogin oo hawlo kale iyo wax weyn arrimo kale ka talinaya marka salaada waxa loo baahayay in sifadeeda la ilaaliyo si ay u noqoto salaadii dambiyada meelaysa dhaafisay Ilaahay wuxuu amaanay dadka salaada tukada qiimaha ay leedahay arrinkaas inayna tusinaya Ilaahay dadka salaada tukada sifooyin kala fara badanna waa ku amaanay inay liibaaneen buu tilmaamay laakiin salaada laga bilaabay sifooyinka qad aflaha almu'minuun alladheena hum fi salatihim khashi'un waxa liibaaneen mu'miniin lagu khatimay ama lagu amaanay salaadooda inay xifdiyaan والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون كوا صلاة ولا حفظين يبا الليباني كوا سبا كوا سبا وحد حلي طب وحد حلي لكن حالك نبكي واك اي رنطاي ما حي دحلين فردوسي دحلين واعلى الجنة جنة هالك أوصر ريتوي ووليبا وحويان اي كوا ريان إلهي مركوا أماني ذاتك صلاة السكنية وحي إلهي سبحانه وتعالى ودليعي وعقابي هلاقي عذاب وقبلا قاضي كوا صلاة وحويان ضيعي وحيلاي تلمامي ذاتك ونأتنا إني كدن بيان كوا صلاة ضيعي وشهواتك وحويان راعي تبصر بضا صلاة إني ضيعان كما يكلفين أود لاني أود وأولي ينحر نود وابد قبال وقت نواها يستان سيداس وكلا وحويان إلهي عقل قود وأودا ما يستري إلهي بأرزاق سبحانه وتعالى صلاة إن الضيعة وحكو كلفية وشهوات كود الراعي وسيدانا كامر قاتوه قال سمي إلهي وحل لي كوا وحال برد دونا مالين قيامه وبجهنم كل حيال عبد الله بن مسعود وحوري الغي ونهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر وبجهنم بحيد مرح كعب بيس أرمي مركها الرادات في صلاة اللغو تاقوي مركها بدن كيسو هذه البوحية وانا بعيد القعر وهذا كل عامة هذه أدي قلتي سأقول لي أرسالوا ماذا يكسوا بيحي كريان ما إلهي وحوتنا حتى قوة كانية لكن صلاة ولا الضيعية إن يجنه وقوه صبناضي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وكيت كانية صلاة دي سوحويان نقصانتو أي كتير تيد ضيعي نحاضوا مالين ساكان صلاة بتو كان هو قوه صبناضي انتبوا لك إلهي وحوتنا قوة كفار تنار تمرك لغو إن سؤال لو يدين دون الله رم دون ما سلككم في سقر ونهار سقر الله ينادي محايد انقليه حاصل بين القشان وحيابا يشيكتين وحا كمدا بلا يكون بلابين قالوا لم نكن من المصلين وحيدان قوته كذا ما نارهين صلاة الله أنت بان نار تنقليسي هذا ركتان لكن ده اعتراف عين كاسية وحبا كثر ما يمالين إيجا يوم با على علي ما أنت هيا مركا قفك إلا قد بونتهاي إن واتبك إلى أشهده هذا وتولانا ركيس حلاحة لقدام بين وحيلا يكورمي إن كوا ركوع لي صلاة اللوغو يريو يان ركوع هاي ما أنت بيدنا رنكاسي إن العقاب لكل بدونان وحربوا تلمام يا إن مالين تقيامه صوت كمركا وصوت صبح أهوال يوم القيام والرحب ولا صوت دويي لذي فربضان وددك كداعية ماشي أسيه وحيابا فربضان وددك حنوتياي كتاقيهين waxaa la odhan doonaa waar sujuuda waxaa la kala saarayaa kuwii tukan jiray iyo kuwii aan tukan jiray kuwii tukan jiray baa laftooda la kala saaraya kii ilaahay daraaddii u tukan jiray iyo kii istus ay ka ahayd sujuudaa la odhanaya ilaahay wuxuu tilmaamayaa in kuwii aan tukan jirin salaada loogu taageli waayey aanay karayn falaa yastatiicuuna khaashicatan absaaruhum tarhaquhum dilla waqad kaanuu yudcauna ila sujuudi wahum saalimuun ilaahay wuxuu leeyahay kari maayaan inay sujuudaan رسولكم أبو سيد فسر عليه الصلاة والسلام حديث أبو سعيد الخدري وحي اسكد يعني سجودان مركا دورك وحي لوقنا إني هاي الدبغية تصار صارا وحي ويان صداسي أسوك لقلوعانا يمركا قفكو السجود السجود من الركوع دبق قلو سيدا أستاقا وحديث وكلا أيو دبق قد نقول يا أبو النبي عليه الصلاة والسلام مركا سيد سوريا السجود كلمايان قدات كاسي يدوك يكون فنيا
rasuulkeena sheegay calayhi salaatu wasalaam. ilaahay wuxuu tilmaamayaa in maalintaasi wejigooda dulli uu saaran yahay, indhahoodana dulli waxa weeyaan uu ka muuqdo. wixii sharafta iyo karaamada ay ku heli lahaayeen ayaa ay ka tegeen. ilaahay wuxuu leeyahay iyaga oo badqabaa sujuudda loogu yeedhi, markaasay sujuudi waaye. adduunka iyagoo joogaa salaad laga waar iska tukada, waar ilaahay subxaana watacaala sooda dhulka u dhiga, waar wakti badan idinka qaadan mayso, waar ilaahay baad ugu dhawaanaysaan, waar ilaahay baad subxaana watacaala karaamiyo sharafe agtiisa aad kaga helaysaan. markaasay diideen. idan markaa waxaa arrinkuu noqday maalintaa inay kari waayeen. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay addoonka islaamnimadiisa iyo gaalnimadiisa waxa u dhexeeya inay tahay salaada. oo addoonku salaadii hadduu tukanayo inuu yahay mid muslima, wax kaloo islaamnimadiisa buryaanu la iman. haddii salaada waxa weeyaan uu ka tagana inuu yahay kaafir. rasuulkaasaa ka cabiray alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa waman tarakaha faqad kafar. ballanta naga dhexaysa waa salaada buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam. ayaan isku ognahay in la ilaaliyo la xifdiyo. ninka ballankaa kasoo bixi waa salaada ka tagaa faqad kafar. nebi maxamed baa yidhi calayhi salaatu wasalaam salaada waxaa loo qabaa baahi weyn. sidaa awgeed baa ilaahay subxaana watacaala habeenkii iyo maalintii uu 5 ka dhigay. waxay culimadu ka hadleen sababtu maxay tahay 5 salaadood loo waajibiyey. waxay culimadu yidhaahdeen dadka ibni aadamka naftooda waxaa ku beeran inay tahay mid waxa weeyaan hawada raacdiyo shahwada. mooganaan baa ku beeran iyo ilow. waxaa ku beeran waxa weeyaan in camalka marka hore si firfircoon ay ku bilaabaan kadibna ay ka daalaan. ilaahay subxaana watacaala markaa xikmadiisu waxay keensatay inaan addoomaha salaadii aan looga dhigin mid quraysan laga dhigo, si waxa weeyaan kaflada iyo mooganaantaasi looga baraarujiyo. ilowgaana waxa weeyaan xusuus meeshiisa loo geliyo. halkii shahawaadka naftu ay raaci lahayd iyo xumaanahana waxa weeyaan nafta lagu mashquuliyo cibaadadan iyo khayrkan iyo wanaaggan. sawgeed baa 5 looga dhigay. markaasaa la koobay, waayo bacsiga ibni aadamka ayaa ilaahay subxaana watacaala uu og yahay. markaasaa weliba waxaa lagu beegay waktiyo dadku ay shaqooyinka dhamaystaan. oo 5 salaadoodba u fiirso, 5 salaadoodba u fiirso. salaad waxa weeyaan waqti shaqo ku beegantaa ma jirto. salaada subax waynu ognahay oo waqtiga qofku hurdadiisa u dhamaysto. salaada duhur waa marka shaqada laga rawaxayo ee qofku uu qada doonanayo uu iska soo nasanayo. salaada casar waa qofku marka uu nasashadiisii dhamaysto shaqadiisii uu ku noqonayo. salaada maqrib waa marka shaqooyinka la dhamaysto ee shaqada waxa weeyaan la joojiyo. salaada waxa weeyaan cishaayna waaba kasii dambaysa. ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku beegay waktiyadii firaaqada. arrinta labaad waxay tahay salaadaha 5 looga dhigay. addoonku inta uu adduunyada joogo waxa uu ku dadaalayaa sidii waxa weeyaan daarta aakhiro markuu tago uu badbaadi lahaa. daarta aakhiro oo dee tacab iyo dhibaato fara badani addoonka ay kaga horrayso haddaanu imika sii dadaalin. addoonka markaa waxaa hor yaala 5 arrimood ayaa dariiqa aakhiro uu marayo ee uu doonayo inuu ku badbaado. 5 arrimood baa yaalla. 5taasi arrimood waxaa u horraysa adduunyadan sharkeeda iyo aafaadkeeda iyo fitnadeeda iyo shawaaqisheeda, waxyaabaha qofka mashquuliya iyo waxyaabaha qofka ku tacalluqee faraha badan ee qofku wixii uu doonayay ka hor istaagaya. waa noocyo badan yihin. arrinta labaad ee ku xigta waa geerida fitnadeedii. sakaraatulmawtkii wuxuu qofku waxa weeyaan shaahidaya xaaladaasi oo arrimo aad iyo aad u waaweyna oo xanuujiya. saddexaadna waa qabrigii iyo cidhiirigiisa iyo cidladiisa iyo su-aalihii munkar iyo nakiir ay weydiinayeen. arrinta afraadna waxay tahay taa ugu xigta addoonka waa xashrigii, oo markii addoomaha lasoo ururinayay iyagoo qaawan oo kabala oo sidii ilaahay subxaana watacaala uu ku abuuray. arrintaasina waa arrin aad iyo aad u daranaa caqabo kala ah. arrinta shanaadna waa xisaabtii oo addoonka waxa weeyaan la xisaabinayo. xisaabtaasi addoonku aanu garanahayn. xisaabtu waa canaanta ama ciqaab baa ka dambayn doona mise wax kale. waxay marka ahlucilmigu leeyihin 5taa caqaba ama 5taa arrimood ee lagu turunturooday aakhiro ka sokeeya. 5taasi arrimood inuu addoonku ka gudbo waxa u sahlaya inuu 5 salaadood ilaaliyo oo uu xifdiyo. si awgeed baa 5 looga dhigay. haddii 5ta waxa weeyaan uu ilaaliyo 5taasi arrimoodba waa u fududaan.
الدنيا رنكاد وفرضان موتكنا وفرضان قبركنا وفرضان حشركنا وفرضان دون حسابكنا وفرضان هذيك لا أنتم بواعد كانيان هذيك أنت لقول دعنا معنى يدوح وياه والله دعية ولا هالأكثر والرسول كان تمام عليه الصلاة والسلام نارت إني كحل صوت إني حمته ويقرته مالي وحويان أدونكم كسو تولي تيرا هذه أدونكم نارت وكبلا دنبي وحويان خلط يحمان كدعضي وحول الرسول كان عليه الصلاة والسلام إلهي مركو لما يكال حكم كادونه وكال حكم أيوه أو دونين النار تكسو صارو حد أو دونين نحريصه وكم إذا كل لا إله إلا الله كل واقع جري الليمي إلهي ملايكته وحو فريا إن النار تكسو صارا حالو قرنا يا مركب نارتي كوة قالاها هي كوة مسلمة هو كتير حالو كلا سواحية وحول الرسول كوحي كوة قرنا بعلامة آثار السجود سجود الرأس كاي كجسكتي يا علامتها أي سميتي أيها لو قرنية تأتى لك جسوا سواعية وهي إلهي وكم من وعيبه لرسولكم نارت إلى العنطة ماله إن آدم كو سجود الشريك مركا إيغا ماله وكو سجود الشريك فضبادي حبنا السجود وهي بطقبات انتي كلمات بحل أي نقطي يا لقوا صار يا نار دوا كل مسلمين تايد دنبيا لك لكم قري مركا حديث كاس وعلماء قاركود يودر يسدان تارك الصلاة فيني هاي كاس وكون أرسل لك صاريو يسوى أنه كتيرين يالك أو كواري وايو محايد سكا لقو قرم دورا إلا إلهي سبحانه وتعالى وموسى سجودين وعلامات في وحويان كوا كفارتين نارت كتيرا لك قرر لها أي ملايكتو أي كجسو إلا هاي مكان مغضان السكا مركا أضونكو بل على الأقل في علامات كاسو وهلو آثار السجود إنه صلاة إلى شدو كده دالوية رسول كان عليه الصلاة والسلام سبع نوع تانية الصلاة قدر كذي قيمة هذا وحول والعرورتي إن الصلاة فرع صدق بكير مركي قاران إنما يهب لبا كنا قراعة تبنتير مركي قاران عرور تبنتير مركي قاران صلى الله أنت كو قراعة كرباش هذه تكوايا حمانت نصيب دراها إن مسلمين تنفر بوانا كم إذا رجل مسؤول كايتو كذلك عرورتودina salaadlaan ay taagan yihiin kuwii xataa gacanta ku hayeen 7 jirka iyo kuwii 10 jirka waajib bay kugu tay 7 jirka inaad farto atira salaada afku baad ka farto waad ku adkaynayso ka 10 jirka inaad ku karbaashta haduu tukan waayo adigay waajib kugu tay inuu tukadaa waa ficil isagu uu sameeyo laakiin inaad ku karbaashta ayaa adiga waajib kugu ah in marka caruurtii salaadlaan laga yimaado masaajida la yimaado wana si dar in dumarka iyaga laga soo qaaday inaan salaad ba laga rabino raguna iska tukadaan oo masaajida iska yimaadaan waa nasiib dar waayo day ilaahay wuxuu yiri war naftiina iyo waxa weeyaan ehelkiina naarka ilaaliya waxa loo baahan yahay in dadkaaga uga tudhan naar caruurtaada iyo dumarkaaga sadna adu waxaad ka cararaysaa waa naar jannana waa doonaysaa iyagana naarta kala carar jannana la doon saasoo kale adiga waajiba kaa saaran waxaa loo baahan yahay inaad ka soo baxdo culimada waxaa xadiidkan wuxuu tusinayaa ciqaabka la mariyo qofka taariku salaadka isagoo qaan gaadhin oo 10 jir baa la karbaashaya waxay leeyihiin marka uu qaan gaadhana ciqaabku inuu intaa ka sii daraanaya laga qaadanaya ilaa ay yidhaahdeen aimada shaaficiyada kuwa ka midi xadiidkani wuxuu tusinayaa in haddii qofkii aan qaan gaadhin salaadii lagu garaacay kii aan qaan gaadhinna ciqaabka loo sii kordhinayo ciqaabka garaaca كزيادة نوع دلو إلا الدلي بل علماء واحد يسكوا وافقتيهين وحوين أكثر أهل العلم عن هذا قفك صلاة تكون وايه إنه واجب كتهاي حاكمك ومضى أطلين هاي إنه لا صلاة تكون واجباتك أوى وين حكام تصارم بارنكاس كميد صلاة الضبك إنه فران ويولي بكو إلزاميات لا ود يقول ليه ولا صوي استاتين يا هبا لو صلاة ما تكنتها ها تكو هدول هذا أنا قلت صلاة تكن ماي ولا الدلية حاكمك إنه الدلية واجب كوا قرطة وكسرة ولبس الراجح الصحيحة قفك إلى هذا أنا قلت صلاة تكن ماي إيه هل يدلو سوى قاربوا دي وايو وصورة قال ما هذا إلى أهل العلم قفك يسوى مسلم وقلبه ليس إيمان كتيره صلاة إنه الدل كبار وأنا قلت تكن ماي هل يدلو وحاوق يين ولا تكن ماي هل يدلو وقال لما يتمان قفك قرصون
marka arrintaasi waxayna tusinaysaa khatarta ay leedahay salaada oo waxa weeye la dayaco wuxuu rasuulkeenu yihi calayhi salaatu wasalaam salaada casar oo qura isagoo ka hadlaya salaada casar qofka ay ka tagtaa waxa uu ka dhigan yahay mid ehelkiisi iyo maalkiisiiba waaye kaanamaa wutira ahluhu wa maaluh waxay culimada dhahaan qofka mawtuurka waxaa looga jeedaa waa qofka inta qof laga dilay dhiiggiisiina waayey inta qofkiisii la dilay baa halkaa la iska maray ninka markaa salaadii casar ay ka tagtay wuxuu ka dhigan yahay ninkaasoo kale u ka dhigan yahay culimada qaarkood waxay dhaha mawtuurka waxaa la dhaha qofka dadkiisii iyo xoolihiisii la qaatay isagoo arkaya oo aan ciddaa qaatay aan ka reebi karin oon ka ridi karin kii salaada casar ka tagtay kaasaa lagala mid dhigay xageeba iska shabahaan waxay iska shabahaan ninkan ehelkiisii iyo maalkiisii la qaatay isagoo arkaya laba murugaa isugu darsamay ta koowaade dee dadkiisi iyo xoolihiisii buu waayey ta labaadna waanu dhacsan karahayno isagoo arkaaba la dareersadayba waa laba murugo weyaan ninkan salaadii casar ay ka tagtayna laba murugo ayaa isagana qabsan doona murugo ka qabsan doonta dembiga arrinka noocaasiya uu ka xambaartay iyo murugo ka qabsan doonta sawaabkii ajarka ku dhaafay salaada casare waxa weeyaan uu lumiyey waa salaadii casar maxaad umalaynaysa waxa weeyaan salaadaha kale salaadu waxa ay koobsatay qaybihii cibaadada oo dhan oo ilaahay qalbigaa laga caabudaa carabkana waa laga caabudaa xubnahan kalena waa laga caabudaa salaadu waa cibaadada intaaba koobsanay cibaadadii qalbigaa ku jirta oo ah ilaahay u hoggaansankiisii iyo khushuucdii iyo ilaahay subxana watacala isudullayntii tii carabkaa ku jirta oo qur-aan baa la akrinaya iyo tasbiix iyo tahliil iyo ilaahay subxaana watacala la weyneynaya tii jawaarixdaa ku jirta iyo xubnaha kale ilaahay baa loo rukuucaya oo loo sujuudaya waxaan kusoo gabagabaynayaa waxayna tusinaya fadliga salaada iyo qiimaheeda axaadiista faraha badan ee ku soo aroortay fadliga ay sujuudu leedahay wuxuu yihi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ma jira addoon muslima oo ilaahay sujuudu sujuudaya hadduu u sujuudo ilaahay sujuud ilaahay subxaana watacaala darajo ayuu kor ugu qaadaa addoonkaas waa sujuudda aada sujuuddaad ilahay halkaa dhulka u dhigtay ilaahay subxaana watacaala dembi iyo gaf ka dhacayna waa uu kaga dejiyaay oo waa kaga masaxaa wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam addoonkii ilaahay wuxuu ugu dhow yahay marka uu sujuudsan yahay ee markaad sujuudsan tihiin ducada farabadiya waxaa ilaahay subxaana watacaala uu mudan yahay inuu waktigaasi idin aqbalo oo idin ajiibo sujuuddu mar hadday fadligaa leedahay salaada ayay ka mid tahay waa fadli salaaduna ay leedahay wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ibni aadamku markuu akriyo aayad ay sujuudi ku jirtuu sujuudo shaydaanka ayaa ka fogaada isagoo ooyayo barooranaya waxaanu idhahdaa hoogaygii ibni aadamka waxaa la faray sujuud wuu sujuuday falahu ljanna janna ayaa markaa uu leeyahy anigana waxaa lay faray sujuud waan diiday faliya naar baan markaa leeyahay buu leeyahy shaydaanku markaa waxa uu yaqiinsan yahay qiimaha ay leedahay salaadu in ilaahay subxaana watacaala loogu dhawaanayo janno lagu helayo sa awgeed buu kaala dagaalamaya sujuud la-aantu khatarta ay leedahayna waa garanaya in naar lagu gelayo sa awgeed buu kugula dadaalaya sujuud la-aan iyo salaad la-aan mar allaaliyo marka waxa weeyaan salaada waktigeeda uu soo xaadiro ayuu imanaya aadaanka markuu maqluu yaro ordaya marka la dhameeyuu soo noqonaya marka la aqiimuu ka cararaya iqaamada marka iqaamada la dhameeyuu soo noqonaya markaasuu hawshiisa bilaabaya udkurkada taa xusuuso imisuu doolarkii maraya maanta hebel imisaad ku lahayd hawlo noocaasiya talow goormaad guri dhisan doonta goormaad waxaa samay waxaasuu kugu furaya si sujuud iyo salaada waxa weeyaan uu kaaga mashquuliyo bal wuxuu isku dayay inuu kaa gooyo saa ogeed buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waar midkiin markuu tukanaya ha samaysto sutro waa shayga la ishordhigo shay waxa weeyaan dhudhunkaasi leeg waa in ishordhigto marka aad salaada tukanayso ama tiir xaggi aad u tukato ama gidaar waayo shaydaanka ayaa isku daya salaadaada inuu jaro nebi maxamed bu alayhi salaatu wasalaam isku daya salaada inuu ka jaro oo waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala uu ugu kaalmeeyey oo arrinka noocaasiya uu u suurtogeli waa shaydaankii adna uu isku dayay inuu salaada kaa jaro wuxuu ka xanaaqsanyay sujuudda aad sujuudaysa wuxuu doonaya inaad la mid noqoto sidaas oo kale rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa mid ka mid oo la odhan jiray rabiica ibnu kacab ilaslami wuxuu yihi rasuulka agtiisa ayaan u hoyan jiray
dabeeta rasuulkaanu keenay waysadiisii iyo wuxuu u baahnaa markaasuu rasuulku igu yihi waxaad doonaysa i weydiiso si aan kaaga abaalgudo khidmadan iyo wanaaggan aad ii qabatay waxaan idhi buu yihi as'aluka muraafaqataka fi ljanna waxaan doonaya inaan jannada kugula rafiiqo wax kala dooni maayo waayo jannada ayaa agtooda qiimo weyn ka lahay innaga waxaa laga yaabaa innagoo dad muslimiina oo tukanayna haddana kaflo waxoogaya ayayna haysata haddii waxa weeyaan laynu odhan lahaa intaynu qof wax u qabanno waxaad doonaysa ay weydiiso allahu aclam waxaynu weydiisan lahay qofka ah saxaabigana wuxuu yihi waxaan ku weydiisanayaa jannada inaan kugula rafiiqo aw gayra dalik wax kale miyaan idin weydiisanahayn buri rasuulku alayh isalaatu wasalaam qultu huwa dak wax kale kuma weydiisanay buri intaasun baan doonaya intaasay ugu dhantay wuxuu yihi rasuulku faacinnii calaa nafsika bikatrati sujuud waxaad igu kaalmaysaa haddaba sujuud fara badan jannada inaad igula rafiiqda ma doonaysaa sujuudda fara badi salaada badi taasaa keenaysa inaad jannada igula rafiiqdo laakiin dee suurtagal maaha adoo bilaa salaad oo bilaa sujuuda inaad jannada waxa weya igula rafiiqdo salaadda walaalayaal waxay ahayd indhadoogsigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi rasuulkeenu adduunyadiinan laba arrimood ayaa layga jeclaysiiyey waa annisaa waatiib waa dumarka iyo udugga waayo culimadu yidhaha rasuulku dumarka muxuu ku jeclaa laba arrimoodba way sheegeen ta koowaad waxay yidhaha ahlulcilmigu si dumarku waxa weeyaan rasuulka ay uga xifdiyaan oo ay uga weelayaan ay uga reebaan cilmiga raggu aanay daalacanahayn oo ummadda ay u gaadhsiiyaan hadhow taasina way dhacday ta labaadna waxay tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa la imtixaamayey oo bal waxaa lagu imtixaamayey in waxa weeyaan risaaladan iyo mas-uuliyadan la saaray dumarka iyagana la jeclaysiiye jacaylkooda lagu beeray bal in arrintan ay ka mashquulisiyeen kale imtixaankana rasuulku kumuu dhicin ee waa ka guulaystay dumarkana xaqoodii waa ka soo baxay waajibkii ilaahay subxaana wa tacala uu saarayna muu dayicin diibka iyo udugana rasuulka waa la jeclaysiiyey waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu la kulmayaa malaa'ig buu la faqayaa waxyigii u keenaysa rasuulku wuxuu tegayaa meelaha had iyo jeeraale dadku ay isugu imanayaan majaamicu nnaas si dadka markaa ur dhibaataysa aanay uga soo bixin ayaa waxaa la jeclaysiiyey diibka iyo udugga rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu odhan salaadana waa la jeclaysiiyey wuxuu yihi indhadoogsigaygana waxaa laga dhigay salaada quratu cayn shaygan ku indhakuushan ku indhadoogsado ee qalbigaygu uu ku degaan ku xasilo salaada ayaa laga dhigay sidaa awgeed baa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam marka arrin warwar iyo dhibaato leh ay la soo daristo dee salaada xaggeedu u carari jiray xudayfa wuxuu yihi radia allahu canhu maalintii ghaswat laxzaab gaal oo dhami ay isu soo xulufaysatay islaamka iyo dadkiisa yuhuud iyo quraysh iyo qabaa'ilkii kale ee carbeed oo dhan iyo munaafiqiintii oo iyaguna hoosta dabka ka shidaayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabadiisa hawshii kala qayb qaatay wuxuu yihi waxaan arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo habeenkii maro hillaaban ama hullaaban oo waxa weeyaan tukanay sidaas oo kale rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam ghaswatu badr markay dhacday intii waxa weeyaan aanay labada ciidan iska hor iman salaada xaggeeda ayuu u dhaqaaqay wuxuu leeyahay xudayfe rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrini markay la gudboonaato ay la soo darista arrin argagax lihi salaada xaggeedu u carari jir waayo ilahay baa yihi salaada kaalmaysta wastaciinuu bisabri wasalaa salaada iyo sabirka kaalmaysta salaada waxaa laga yaabaa arrini markay dad fara badan la soo daristo inay arrintaas salaaddii ka mashquuliso oo ay is yidhaahdaan arrintanaa dayacmin haddaad salaada tukato laakiin arrintu waa cagsiga oo haddaad salaaddii tukataad si fiican uga soo baxdo arrinkani wuu fududaanaya ilaahay salaadan kuu diray ayaa arrinka fududaynaya asbaabta waxa weeyaan kuu fududaynaysa ayay ka mid tahay waxaan kusoo gabagabaynayaa salaadu waa xidhiirka ka dhexeeya addoonka iyo rabbigii subxaana wa tacaala waxa uu tilmaamay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam addoonka marka uu yidhahdo alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ee faatixada akrinteeda uu bilaabo inuu ilaahay u jawaabay oo ilaahay odhanaya addoonkaygiiba ay mahadiyey marka uu yidhaahdo alraxmaan araxiim inuu odhanayo ilaahay addoonkaygii ayaa ammaantii ku soo celceliyey mar labaad marka uu yidhahdo maaliki yawmi iddiin inuu odhanayo addoonkaygiibaa i weyneeyey markuu akriyo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin
inuu ilaahay odhanayo arrinkaasi anigii addoonkayguna dhex yaalla, addoonkayguna waxa uu weydiistay waa helaya, isticaanada iyo kaalmada ah. ihdina siraata almustaqiim markuu akriyo ilaa aayaadka u dambeeya inuu odhanayo ilaahay subxaana watacaala hada licabdi walicabdi maa saal, taa addoonkaygaa iska leh, oo waxuu weydiistay inaan dariiqa wanaagsan ku hanuuniyo, ka xunna aan ka duubo. addoonkaygu waxa uu weydiistana waa iga helaya. bal u fiirsa xidhiidhka noocaasi ah. markaad kelmad tidhaahdaba ilaahay baa kuu jawaabaya subxana watacaala, adigu maqli maysid, laakiin rasuulkeenna inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam, oo waa aynu rumaynaynaa. xidhiidhka caynkaasi qofka aan tukanayn waa ka go-an yahay. qofka waxa weeyaan salaada tukanayana xidhiidhka caynkaasi uu ilaahay la leeyahy, waa mida yoomiyan maalin kaste ilaahay sidaa ay u wada hadlaan, wada hadalka ay isweydaarsadaan. kelmaddaa markuu idhahdo ilaahay subxaana watacaala uu sidaasi waxa weeyaan ugu jawaabayo. markaa walaalayaal, dadka muslimiinta ah foolxuma ayay ku tahay in laga dhex helo kuwa waxa weeyaan taariku salaad. waa arrin aad iyo aad u foolxun, aad iyo aad ba arrinka noocaasi uu ugu weynaa dadkii wanaagsanaa. bal u fiirsa cumar ibn khataab radia allahu canhu, dadkii muslimiinta ee u talinayey ee waxa weeyaan aafaaqda iyo jihaadka kala joogay waraaquu kala diri jiray, isagoo le waan hoy ogaada acmaasha aad samaynaysaan agtayda waxaa ugu weyn salaada, acmaasha aad qabataan agtayda waxaa ugu weyn salaada. waa ninka salaada xifdiya ilaaliya, wixii ka soo hadhana wuu uga ilaalin badan yahi. wax kasta waa lagu aamini karaa, cibaadaadkii khayrkii kale ninka salaada sideedu uga soo baxaa waa ilaashanaya, xumaantana waa ka fogaanaysa. hadday salaadu tahay weeyaan salaadii ilaahay dadka uu faray, oo aan ahayn salaad waxa weeyaan lafteedu qajajaca oo nuqsaan iyo waxa weeyaan kala dhantaalli fara badan ay ku jirto. waayo ilaahay wuxuu yihi salaad dadka xumaantay ka celisaa, dad badanoo tukanayaan aragna xumaanta aanay ka celin. waayo sababtu waxa weeyaan salaada ayaan ahayn tii xumaanta celinaysa, waana dhamaystirnay. hadday ahaan lahayd tii dhamaystirnay xumaanta waa ka celin leh. wuxuu yihi cumar ibnu khataab, ninka salaada dayacaana wixii ka soo hadha waa uga dayacitaan badan yahi. ninka salaadii ilaali waa ruknkii labaadi, dee muxuu ilaalin doonaa? maxaa lagu aamini doonaa? maxaa lagu hadlayn doonaa? war salaada ilaaliya. salaadu waa dardaarankii u dambeeyey ee nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu dardaarmay. waxay yidhahaan saxaabadu, rasuulka calayhi salaatu wasalaam markay geeridu kusoo xaadirtay, iyadoo carabkiisu waxa weeyaan aanu soo qalloocsanahayn, ayaa waxa uu lahaa asalaata asalaa wamaa malakat aymaanukum, war salaada ilaaliya, war salaada xifdiya. iyo waxaa kaloo idiin dardaarmaya dadka mas-uuliyaddiina hoos yimaada iyagana xaqooda inaad ka soo baxdaan oo aydaan dayicin. qof kastoo muslima walaalayaal waxaa la gudboon shantaasi salaadood inuu ilaaliyo oo sidooda uga soo baxo, sifadii nebigu u tukan jirayna calayhi salaatu wasalaam uu barto. dadka muslimiinta markaa ilaahay uu ku imtixaamay inay salaaddii ka tageen oo shaydaanku uu duubsaday, waxaynu ugu baaqaynaa khayrka iyo wanaagga inay soo qaabilaan oo ay ka soo baxaan waxa weeyaan xumaanta ay leedahay salaadoo laga tagaa, oo ay ku soo biiraan xisbullah, oo ay ka soo baxaan waxa weeyaan xisbu shaytaan. dadka ilaahay subxaana watacaala salaada waafajiyeyna waxaynu u dardaarmaynaa in salaadooda waxa weeyaan ay xifdiyaan, ay ilaashadaan, oo ay hagaajiyaan, oo ay waafajiyaan tii nabiga calayhi salaatu wasalaam. wallahu aclam, sala allahu calaa nabiyina maxamed.